soo dhawaada akhyaaray maanta waxaa idin sharaxi doonaa filin americana oo lagu magac daray Fahrenheit Fight. Zoe Hall waa gabar dhigata dugsiga sare kadib markii ay hooyadeed u dhimatay xanuunka kansarka. Zoe iyo aabaheed Todd waxay aadeen subaxyada ka mid ah ugaarsi. Aabaheed Todd ayaa waxa uu toogtay sagaaradu waa ay dhiman weysay waxa ayna sugeen ilaa intay ka dhimanayso. Zoe ma aysan sugin intay ka dhimanayso, dhagax iyo madaxa ugu dhufatay. Zoe aabaheed Todd waa uu la yaaban yahay dhaqanka ay ku samaysay sagaarada oo ay u dishay si naxariis darro ah. Waxa uu yimid saaxiibkeed Lewis si ay isku raacaan ay u aadaan iskoolka. Ayagoo wadada sii maraya ayaa waxaa ka daba yimid gaari, wadadii ayaana ka baxeen. Waxaana ka damay gaariga. Zoe ayaa waxay aragtay mid ka mid ah ardayda galaaska oo banaanka wax ku aasaya oo la yiraahdo Chris. Waxa ay la noqotay wax caadi ah. Maalintaas waa maalin ka mid ah ardayda qaar ee baranka ku sameynayaan macallimiintooda. Zoe waxa ay la kulantay macallimadeeda chemistry-ga oo lagu magacaabo Jane. Macallimada ayaa waxay u sheegtay Zoe in ay dabiicadeedii xumaatay oo isbedeshay kadib markii ay dhimatay hooyadeed. Macallimadana way ku daashisay oo la hadlaysay Zoe ayaa waxay aragtay sawir ay ku wada jiraan saaxiibkeedii iyo gabar kaleeto. Zoe arrintaas aad ayay uga xumaatay waxayna ku fikiraysaa in ay ka harto saaxiibkeed. Zoe iyo Lewis ayaa waxay ku kulmeen cafeteria-da waxayna u sheegtay arrinta ay la soo kulantay. Lewis asigana waa uu ka qanciyay oo waxa uu sheegay in ay mar hore saaxiibo ahayn gabadhaas ay aragtay. asigoo raba inuu u sharxo arrintaas oo raba gacanteeda inuu qabto ayaa Zoe waxaa ku daadanaya shaaxa. Waxay aadaysaa musqusha si ay iskaga soo nadiifiso. Hal mar ayaa magaalada geesiheeda waxaa ka dhacay qaraxyo, waxaana isku yimid booliskii iyo debdemiskii. Waxa ayna ku mashquulsan yihiin in ay kontrolaan ama ay xakameeyaan xaaladdan. Zoe waxay soo aaday musqusha, waxayna aragtay Anna oo wax ku qarinaysa musqusha. Zoe waxa ay raadisay waxa ay qarinaysay Anna, balse wax ma aysan ka soo helin meeshaas. Markii aan ku laabano cafeteria-da, gaari ayaa wuxuu si xooga ku soo galayaa meesha cafeteria-da. Miyaaradii ayuu soo jijibinayaa, dadkii dhanna madaxa ay qabsanayaan. Gaariga waxaa ka soo degaya Chris oo ahaa ninkii meesha wax ku qarinayay. Qor ayuu la soo baxayaa, dadkii ayuuna rasaas ku furayaa. Waxa ay yihiin 3 qofood, Anna oo la dhalatay Chris ayaana ku jirta. Waxaa ku jira mid iskuulka ku dhacay oo la yiraahdo Kip. Hogaamiyahoodana waxaa la yiraahdaa Tristan. Zoe waxa ay ka soo baxaysaa musqusha, waxaana ka hor imaanaya qof dhaawac ah, kaas oo ka codsanaya in ay caawiso ayada. balse ma awoodin in ay caawiso. Qofkii halkaas ayuu ku dhintay. Zoe ayadoo argagaxsan ayay meesha ka soo baxday. Waxa ay si deganaan u dhageysanaysaa kuwa gaangistarada ah waxa ay ku hadlayaan. Tristan ayaa ardayda waxa uu sheegayaa in ay yihiin lahaystayaal oo ay adeecaan asiga. Chris ayaa waxa uu tooganayaa qof ka mid ah ardayda asiga oo ka amar qaadan hogaamiyihiisa ayaa xanaaqaya una sheegaya in uu isdejiyo uusan xabada gamin ilaa iyo amar dambe. Kip ayaa waxa uu aadayaa musqusha si uu u soo hubiyo inuu qof ku jiray in kaleeto. Zoe ayaa waxay isku qarinaysaa qaybta kore ee musqusha. Tristan ayaa waxa uu sheegayaa gabar in ay wacdo qofka ay jeceshahay si ay ula socodsiiso xaaladdan. Waxay wacanaysaa hooyadeed, waxayna u sharaxaysaa xaaladda ka jirta meeshan. Hooyadeedna waxa ay wacaysaa booliska. Tristan ayaa waxa uu sheegaya ardayda in ay wacdaan waalidkooda inay u sheegaan xaaladda jirta. Tanna ay tahay waqtigii ugu dambeysay ka hor inta aysan dhiman. Ardayda ayaa waxay wacayaan waalidkooda waxayna u sheegayaan in aysan ku soo noqon doonin guriga. Zoe ayaa waxay ka soo dhacaysaa saqafka sare, waxayna ku soo dhacaysaa jikada. Dhawaqaas waxaa maqlaya Chris ayaana ku soo ordaya. Tristan ayaa waxa uu wacayaa qaybta soo dhaweynta, waxaana u sheegayaa inay dhinteen ardaydii. Gabadhii meesha joogtay ayaa waxay wacaysaa maamulihii iyo waardiyihii, waxayna u sheegaysaa arrinta jirta. Zoe ayaa waxay ka bixaysaa erida dambe ee jikada, waxayna la kulmaysaa arday ka mid ah galaaskeeda, waxayna u sheegaysaa arrinta jirta. Tristan ayaa wuxuu u sheegayaa dadkii la haystay in ay ka duubaan live. asoo live ku jira ayaa wuxuu u sheegayaa inay dadka dhan dhiman doonaan. Waxaa imaanaya maamulihii iyo waardiyihii ayagoo cabsanaya oo gacmaha kor u taagaya ayay soo galayaan meesha. Maamulihii iyo Tristan ayaa wada dooday. Dood dheer kadib ninkii maamulihii xabad ayaa lagu dhuftay, waa uu dhintay. Ninkii waardiyaha ahaana meesha ayuu ka cararay. Tristan ayaa wuxuu codsaday in laga duubo video. Zoe ayaa waxay u sheegaysaa ardayda dhigatay iskoolka in ay arrintan wax kala qabtaan. Macallimiinta qaar ayaa waxay u malaynayaan inay tahay arrintan baranki. Ardayda qaarkood waa ay rumaysteen meesha ayna ka carareen. Zoe ayaa waxay taabanaysaa alarmiga xaaladda degdega ah sheegaya. Qof kasta waa uu ka soo baxayaa galaaska uu ku jiray. Anna ayaa waxay imaanaysaa qolka laga maamulo korontada. Waxayna dilaysaa ninkii joogay, waxayna diminaysaa alarmiga iyo korontada. Qof kastana waxa uu ku laabanayaa galaaskiisa. Waxaana iskuulka imaanaya booliska. TV-yada qaar ayaa waxa ay bilaabeen in ay tabiyaan xaaladdan. Zoe ayaa waxay isku dayaysaa inay aado qaybta soo dhaweynta, waxaana ka dhacaya qarax meesha. qof kastana waa uu dhimanayaa markii laga reebo ayada. Anna ayaa waxay imaanaysaa meeshii uu qaraxa ka dhacay. Zoe ayaa waxay isku dagaysaa inay cararto, balse lugta ayay ka dhaawacan tahay, ma ordi karto. Waxay isku qarinaysaa qolka ayaa waxaa soo gelaysa Anna. Zoe ayaa kor uga imaanaysa Anna, way isdagaalayaan. Anna halkaas ayaa lagu tooganaya oo ku dhimanaysa. Booliska ayaa waxay aadayaan guriga Tristan, waxayna ku arkayaan hooyadiis oo meed ah oo mar hore dhimatay. Waxaana dilay Tristan.
Tristan ayaa Chris wuxuu u sheegayaa in loo keeno ardayda dhigata luqadda Isbaanishka. Macalimadda ayaa waxay u sheegaysaa inuu joojiyo arrintaas oo ay tahay qalad. Wuxuu u sheegayaa inuu madaxa ka goyn doono haddaysan ka aamusin. Kumanaan qof ayaa waxay u daawanayaan si live ah waxa ka socda iskuulka. Zoya aabaheed ayaa wuxuu ka daawanayaa TV-ga waxa ka socda iskoolka. Waalidiinta qaar ka mid ah iyo booliska ayaa waxay imaadeen iskoolka iridiisa hore. Chris ayaa wuxuu banaanka ka maqlayaa cod waxaana ku soo furayaa ciidankii booliska xabado. Kip ayaa waxa uu soo raadinayaa Zoya, way ka cararaysaa, xabada ayuu ku furayaa. Ugu dambeyntii meel ayuu ku sidbanayaa. Zoya ayaa la dagaalamaysa, wayna qabanaysaa. Waxay ka dhaadhicinaysaa inuu ciidanka ka soo horjeedsado uu ayada la jirsado. Zoya ayaa waxay qaadanaysaa qoriga, waxaa ka hor imaanaya ardaydii iyo macalimadii. Waxayna u sheegaysaa waxa jira, waxayna ka saaraysaa iridda dambeeto. Mid ka mid ah ardayda soo badbaaday ayaa wuxuu u sheegayaa Zoya aabaheed in ay soo badbaadisay gabadhiisa. Aabaheedna arrintaas waa uu ku farxay. Tristan ayaa wuxuu wacayaa Anna. Waxaa ka qabanaysa Zoya, waxayna u sheegaysaa inay dishay Anna. Tristan ayaa wuxuu u sheegayaa inay 5 daqiiqo gudahood ay ku imaado kafeteriyada. Haddii kaleeto uu dili doono dadka uu haysto mid ka mid ah. Intay wada hadlayaan ayuu waxa uu dilayaa qof ka mid ah dadkii uu haysto. Zoya aabaheed ayaa waxa uu go'aansaday inuu soo badbaadiyo gabadhiisa. Zoya ayaa waxay ka dhaadhicinaysaa Kip inuu ka mid noqdo ayada, waxayna u dhiibaysaa qoriga si ay u wada aadaan kafeteriyada. Zoya ayaa waxay imaanaysaa kafeteriyada, waxayna la doodaysaa Tristan. Kip ayaa wuxuu ka imaanayaa gadaasheeda si uu u badbaadiyo ayada. Waxay isku furayaan xabad. Zoya iyo Louis ayaa meesha ka soo cararaya. Louis waxaa ku dhacaysa xabad. Zoya ayaa isku dayaysa in ay badbaadiso asiga. Chris ayaa wuxuu barsanayaa Zoya, waxay ina galaysaa qolka chemistry labka, waxayna shidaysaa gaaska. Halkaas waxaa ka dhacaya qarax. Zoya aabaheed ayaa wuxuu u gaatamayaa inuu badbaadiyo gabadhiisa, wuxuuna xabad ku dhufanayaa Chris. Chrisna halkaas ayuu ku dhimanayaa. Booliska ayaa waxay qabanayaan Zoya aabaheed, halkaas ayayna ku xirayaan. Asigana wuxuu u sheegayaa inuu badbaadinayo gabadhiisa, balse kama aysan yeelin, waa ay xireen. Tristan ayaa wuxuu wacayaa Chris, balse waxaa ka qabanaysa Zoya, waxayna u diraysaa sawirka in ay dishay Chris. Wuu arkayaa Tristan, waa uu xanaaqayaa asigana. Zoya ayaa waxay soo galaysaa live, waxayna u sheegaysaa dadka in ay fashilisay howshii nimankii haystay dadka. Tristan ayaa wuxuu u wadanayaa dadkii uu haystay qof ka mid ah, wuxuuna la aadayaa qaybta kore. Zoya ayaa waxay ku soo laabanaysaa kafeteriyada, waxayna galaysaa gaariga, waxayna ku arkaysaa qarax. Gaariga ayay u banaanka u saaraysaa, banaanka ayuuna ku qarxayaa gaariga. Booliska ayaa qabanaya Zoya, wayna xirayaan. Taliyaha ciidanka ayaa ugu mahadcelinaya Zoya arrintii ay qabatay. Waxa ay la kulmaysaa aabaheed oo xiran. Zoya ayaa waxay arkaysaa qof ka tirsan isgoolka oo gees u baxay, wayna dabagelaysaa, waxayna qaadanaysaa qoriga aabaheed. Waxa uu la soo baxayaa lacag feeg ah. Halkaas asigoo lacagtii ku tirsanaya ayaa Zoya tooganaysaa, halkaas ayuuna ku dhimanayaa. Filimka halkaas ayuu ku dhamaanayaa. Haddii tahay markii kugu horeysa soo booqatay channelkan, subscribe noo saar.